السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا كورس كنا في السماء بابورتا. أكتب كيسي لبعض 10 كيسي كوبات. 10 كوبات وحن كل دونا موتور كبابورتا. وحنيسو تشدين دونا أنا بقى محمد حرس فارح. نحكي جواب علينا وحنا وصل علينا كرتان إيميل كشاشة دينا كم مغضى. كورس كانوا حكلا ساعتين أما كذا ساعتين مريكتا سوماليسم أونلاين أكاديمي موتور كبابورتا. motoorku waa shayga keena awoodda baabuurku ku socdo. motoorku waxa uu qaybsamaa saddex qaybood oo waaweyn. Saddexda qaybood oo kala ah testato, baloko iyo setakobo. Testatadu waa qaybta sare ee motoorka oo ay ku xiran yihiin albarakaanka, waalasha iyo agab kale. Waxaana daboola kulbeer baa daboola. Kulbeerku waa qaybta sare ee daboosha testatada. Toban testatadii kana waa kulbeerkii. furkaas oo jeedaan xagaas waxa weeye meesha motoorka looga shubo olyada. kulbeerku sidoo kale testatada wuxuu ka ilaaliyaa inay wasakh iyo boor iyo wax soo gudbaan. agabka ku xirma testatada waxa ku xirma agabkan, waxa ku xirma dhabanta hawada ku xirmata, dhabanta dabka ku xirmata, bilaagyada ku xirmada, arxaanka ku xirmada, waalasha ku xirmada. agabkan soo shaqeeya insha Allah waxa ku baran doona marka bustamada marano. bustamku wuxuu qaataa hawaduna waxay ka soo gashaa dhabanta hawada. kadib gubashada hawada iyo shidaalka ka dhexdhacdayna waxay ka baxsaa dhabanta dabka ka baxsaa. bilaagyadu waxay ka qayb qaadanayaan gubashada ka dhexdhacsa bustamka. arxaankuna wuxuu ka shaqeysanayaa waalasha. waalashuna waa meesha ay hawada gubatay ka baxso, hawada loo baahan yahayna ay ka soo galayso bustam. irbado waxaa isticmaala motoorka batroolka ah ee maskaxda ku shaqeeya. irbado waxay motoorka bustamka soo gaarsiiyaan xaddiga shidaal ee loo baahan yahay bay soo gaarsiiyaan bustamka. baakin ama garasiyoone waxa uu kala ilaaliyaa labada birood, waxa uu u dhaxeeyaa balokada iyo testatada. jigtaro waxaa isticmaala motoorada naaftada ah isticmaala. waxayna bustamka soo gaarsiiyaan xaddiga shidaal ee uu u baahan yahay inuu qaraxo ku dhaco. ayaguna soo gaarsiiyaan dhabanta hawada. waa dhabanta hawada sida aan sheegnay waxa motoorka ka soo gala ama bustamada ay u soo nuugaan hawadii xaddigii hawo oo u baahnaa in bustamada loo qaybiyo. waa meesha hawada ka soo gasho. dhabanta dabka waa meeshii gubashadii ka dhexdhacday bustamka, hawadii gubatay ay ka baxayso banaanka looga saaray bustamada. bilaagyadu waa anaga sheegnay, bilaagyadu waa kuwan xaggaas wuxuu ka soo siinaa dab yar dhac ka siinaya. dabkaas wuxuu ka qayb qaadanaya gubashada ka dhexdhacsa bustamka hawada iyo shidaalka isku qasa. arxaanka waa kan ama albarakaankii waxay ka shaqeysayaan xagga waxaas dhan waalalba uga xirman. waalashaas waa meeshii markii loo baahan yahay in motoorku ama bustamku uu hawo qaatana wuxuu furayaa waalka hawo qaadashada. markii la rabo in hawadii gubatay iyo shidaalkiina la iska saarana waalka dabku furaya. marka sidaas ayuu arxaanku uga shaqeysiyaa waalasha kuwan. waalasha waxay iskugu jiraan kuwa hawo iyo shidaal ka soo galaan bustamka iyo kuwa hawada gubatay ka baxda. kuwa madmadow waxa la yiraahdaa waalasha dabka la yiraahdaa kuwa madmadow. kuwan kalena waa waalasha hawada. irbaduhu sida aan sheegnay waxa isticmaala motoorka batroolka ah isticmaala. waxay soo gaarsiiyaan xaddiga shidaal ee uu u baahan yahay bustam si ay gubasho u dhacdo. baakin ama garasiyoone sida aan sheegnay wuxuu u dhaxeeyaa balokada iyo testatada, waxaana kala ilaaliyaa labada birood isxoqtaan wax ka dhexdhacaan. qaybta labaad ee motoorka, qaybta koowaad waxay ahayd testato aan soo qaadanay ku soo dhex jirnay. qaybta labaad hadda u gudubno oo balokada ah. balokadu waa qaybta ugu weyn motoorka. dhanka sare waxa uga xiran galaasyada iyo bustamka oo ku dhex jira. dhanka hoosena waxa uga xiran kariinka. sidoo kale waxa ku xiran ama ay ka caawisaa birta wareejisa kariinka. birta wareejisa kariinkana way caawisaa. horey bay uga xiranta balokada hore uga xiranta. balokadu waxay leedahay daldaloolo iyo dhuumo ay maraan biyaha qaboojiya galaasyada. sidoo kale balokada qaybteeda sare waxa ay u qaabaysan tahay saddex qaab oo kala ah: qaab siman, qaab toosan iyo qaab V ah. waana sida ay bustamada u galayaan balokada. hadda qaabka balokada ay bustamada u galayaan bay u qaabaysan tahay balokada.
waa kan hadda tusaale ahaan balookadan oo kale waxaan ugu yeeranaa balooka fee ah, waayo xaggan 4 baston baa taalla, xagga kalena 4 baston baa taalla, qaabka fee ah bay u samaysantahay ujeedaan baa filaya. balookadan qaab dheerar ah bay u samaysan tahay, waa ka 4 galaas xagga uga jeedaan saan taag u samaysan tahay. balookada naaftada waxay uga duwan tahay balookada baasiinka ah, waxay leedahay cooler, waxay leedahay waraabiyaal 4 xabo ah, waxay leedahay bumbada naaftada, geneetooyin iyo jigtor, intaas ayadu leedahay. tan kalena yani kuwa ka duwan bay leedahay. waraabiyaashu waa khasabado dhexda ka duleela, waxayna ku xiran bool dhexda ka duleelana khasabadahaas ku xiran oo ay dhex marto olyada ka timaado bumbada olyada, waxa uuna waraabiyaa buushka iyo beelaha bastamada. khasabadahaas xaggaas bay waraabiyaan. bumka agabka ku xirma balookada waxaan soo qaadanay agab ku xirma testatada ay ka mid ahaayeen arxaankii, waalashii, dhawantii hawada, dhawantii dabka. hadda waxaan qaadanayna agab ku xirma balookada. waxaa ku xirmada bamka olyada ku xirmada, marawaxada kale ku xirmada, kariinka ku xirmada, galaasyada ku xirmada, filterka olyada ku xirmada, dhuumaha olyada sidoo kale waxay dhex maraan ama ku samaysan yihiin balookada. bastomadii oo kale wax ku dhex jiraan balookada ku dhex jiraan, gaar ahaan galaasyada ugu sii dhex jiraan. levelka olyada, bamka olyada waa bamka xagga wuxuu uga xiran yahay filterka xagga hore uga xiran, wuxuuna bamgareeyaa olyadu wuxuu usii gudbiyaa waxa la yiraahdo balookada usii gudbiyaa iyo meelaha looga baahan yahay. marawaxadii waa tan motorka, intaas xagga ay ku xiran tahay waa balookadii, balookada horteeda ku xiran tahay marawaxadu. kariinkii wuxuu wareejiyaa bastamada oo ka shaqaysiiya. galaasyada waa meesha ay bastamadu ku jiraan baa galaasyo la yiraahdo. dhuumaha olyada, meelaha yarka dulduleelo oo circle-ka gududka u saaran yahay ama axmarka ama casaanka ayaa waa meelaha dhuumaha ay maraan olyada. filterka olyada waa kan ujeedaan, wuxuu sifeeyaa olyadu sifeeya. bastanki waa kan biyeelihii, buushkii xaggaas ku jira, xaggan waxaa mara riimka dabka iyo riimka hawada xaggaas maraan. levelka olyada waa kan, waxaa lagu ogaadaa xaddiga olyada iyo saafi noqoshadeeda, yani olyada inay saafi tahay iyo xaddiga ay marayso baa lagu ogaadaa. setokobo waa qaybta saddexaad ee motorka. setokobo waa qaybta hoose ee motorka, waxaana ku kaydsan olyada, waxaana olyada kasoo bamgareeya, bamka olyada kasoo dhex bamgareeya. ugu dambeyn motorku waa awood dhaliyaha abuurka, waxaana gudihiisa ka socda shaqooyin badan baa ka socda, waayo biyaha ku dhex wareegaya, olya ku dhex wareegaysa, gubasha ka dhex dhacaysa, shaqooyin badan baa ka dhex socda. motorada waxay ka midaysan yihiin, motorada dhan waxay leeyihiin testaatay leeyihiin, balookay leeyihiin, bastomay leeyihiin, kariinna way leeyihiin, kariinka ka bastomada wareeji. labada motorkan batroolka oo injectionka iyo motorka batroolka ee carburetorka, qaabka nidaamka oo shidaalka ku gaaro bastomada. taangigu shidaalku ku kaydsan yahay, wiida oo taangiga ku dhex jirta kasoo dhex qaada, kulucada oo filterka shidaalka ah buu sii maraa, maskaxda kala wareegta. markaas maskaxda markay kala wareegto irbadaha wax ku shaqeynaya maskaxda oo habdan markii loo baahan yahay automatic ah ku shaqeynaya, habdan bustak looga baahan yahay ku dhijinaya. motorka kale oo carburetorka ah, shidaalku wuxuu ku kaydsan yahay taangiga waxaa kasoo nuugaysa bambadu marka kulucada way ka dambeyn kartaa, marna way ka horeyn kartaa. kulucada bambadu waxay sii gudbinaysaa, sii gaarsiinaysaa carburetorka wuxuu gaarsiinayaa rokodhada waxay u qaybinayaan waxa la yiraahdo bastomadii u qaybinayaan mid kasta xaddiga shidaal ee looga baahnaa siinay. aad baa mahadsantihiin casharkeena maanta, intaas ayuu ku egyahay. mahadsantihiin.